بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد أخواتي في العقيدة الموضوع عن اسكو دايدو نهدي ألا إدمه إن وحكن لنا والمنافقون وخطرهم على الأمة نفاق أيام منافقين تا marka aan ka waramayno ugu horeyn waxaan uga waramaynaa si aan inagu uga dheeraano si aan nafteena sifaadka iyo calaamaadka iyo astaamaha iyo tilmaamaha iyo sumadda lagu yaqaano dadka si loo nisbeeyay nifaaq aan uga dheeraano si aan u helo xasaasiyadii ama dareenkii ay lahaayeen saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam وكإمام البخاري في صحيحه باب كسر أرورينيا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر دبتنا وحكوب بلاب يا باب كاسي يعني ابن أبي مليكة تابعي لورين شري وركسر نقلنا أيه ابن أبي مليكة هو تابع معروف رقي صحابة بدنا سوق عليه وحلي أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل تابعي قاسي ابن أبي مليكة اللي هذا وحلي وحن سوق علي صدًا كمد الصحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودمان تود نفهد النفاق وقبقية وصحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول لفهود وقعب صنية نفاقة مد أورنشري ما شربوا إيمانك جبريل يا ميكائيل بان لا يعني وحبا إيجا حمان ما ينعت رمي سنيدي ما شرته صحابة سيد النفاق وقبقيين وحيدن كغفلا أحاديثي صارت حديثي حنظلة صحيحة كويا لي أما حديث أنس بن مالك ورنا يا أما حديث أبو هريرة ورنا يا لبضب وتصحيحين يا شيخ الألباني في سلسلته يعني بعض الألفاظ ده سوق هذا مثلا أنس بن مالك ورنا يوحليه الصحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام باقصوا صبح رتب النبي قال هره دبتنا واحد هذا هلكنا ورب الكعبة إلهي رسول كيسي هلاك سنة يقول دارنا إياه نبي حكوري وما ذاك maxaa keenay in halaagsantaan dhibto maxay tahay qaaluu annifaaq bay ku yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo munaafiqnima jirta nifaaqu marna waa nifaaq qalbiga dega oo diin la'aana oo gaalnimo ah oo aynu ka warrami doono marna waa nifaaq camaliya oo qofka waxa qalbigiisa ku jira iyo acmaashiisu ay in badan iswaafiq weydo saxaabada waxay ka shakisanaayeen markaasi inay saadiqiin dhaba noqon kari waayaan armay taasi dhacda dabeetana waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa halaagsanay maxaa jira markuu yidhina waxay dhahdeen nifaaq qaala lastum tashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa anni rasuulullah oo miyaydan shahaadada qirayn buu nebigu yidhi inuu alle subxaana wa tacaala keligii ka xaq lagu caabudo yahay anna aan ilaahay rasuulkiisii ahay qaaluu bala waa qarsannay bay dhahdeen midhkaas markaasuu nebigu wuxuu yidhi laysa daaka nifaaq haddaba kanaa ka cabanaysaan man haddaa caqiidadaasi sugan ku sugantihiin munaafaqnimo maaha wuxuu leeyahay anas ibnu maalik mar kale haddana u yimaadeen su-aashii bay sidii ugu celiyeen halaknaa warabbi lkacba nebiguna jawaabtii buu ku celiyey war miyaydan ashahaadanin may waa shahaadada waa qarnaa bay idhaahdeen warkaasi nifaaq maaha mar saddexaad bay haddana nebiga u yimaadeen buu leeyahay anas ibnu maalik iyagoo nafsi lmas'ala u tilmaamaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya inaanay sidani nifaaqnimo ahayn dabeetana markii dambe waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah innaa idaa kunnaa cindak kunnaa calaa xaal ilaahay rasuulkiisiiyo markaannu adiga kula joogno xaalad baannu ku sugannay waidaa kharajnaa min cindik hammatna dunya waahluuna markaannu si adiga kaa tagna bay leeyihiin
waxaana mashquuliya adduunka iyo reeraha iyo waxan baanu ku mashquullaa وكن نبي مركا قول عليه الصلاة والسلام لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على مثل الحال الذي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في طرق المدينة يعني واحد دريميسا إن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى فهد وغشك سين مركا النفاق إذا قفك لنا آمن مركا كماها waxaynu u baahannahay inaynu si fiican markaa u fahmno sifaadka nifaaqa iyo calaamaadka lagu garto si aynu uga dheeraanno si aynu walaaladeenna kale ugaga digno si aynu munaafaqa dhabtaa u arki karno si aynu baranno siduu nebi moxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kuwa sifaadka kani ay ku caddaadaan ibnu abi mulayka saxaabadu soo gaadhay uu leeyahay 30 baan soo gaadhay saxaabadii nebiga oo nifaaq ka baqaya dee kuwa wax ka warin jiray waxaa ka mid ah caaisha asmaa bintu abi bakar ummu salama cabaadaladii afarta ahayd abu hurayra cuqba bnu alxaaris almiswar ibnu makhrama saxaabada waaweyn ajillada abaa ka mida kuwuu soo gaadhay ee wax ka wariyey kuwuu da ahaan ama wakhti ahaan la noolaana dee cali iyo sacd ibnu abi waqaas iyo rag waaweyn oo badan oo kale ka mid ah siduu xaafidku soo naqlinayo waxaan markaa uga jeedinaa mas'alada tan marka aan ka warramayo dadku inta badan markay wacdi dhageystaan cid bay ku asteeyaan oo iskaga sii calaamadsadaan marka koowaad cid aynu calaamadinaynaa inay noqoto lafaheenna inaynu badbaadinno oo ka badbaadinno waxa aan sheegi doonno ee qur-aanku uu tilmaamayo nifaaqa asliyan waxyigu markuu soo degay ama dadku amaam alwaxyi 3 qaybood bay yihiin qayb badheedha oo ka badheedha inay ilaahay ka gaaloobaan subxaanahu wa tacaala shareecadiisa iyo diintiisa toona aan rabin gaalo la yidhaahdo oo mowqif la garanayo sariixa oo cad taagan qayb kale oo iyana ka badheedha oo rumaysan ilaahay iyo rasuulkiisaba siran wa baatinan wa daahiran si walba u rumaysan oo iyana ka badheedha inay qaateen waxyigii xagga alle uga yimi subxaanahu wa tacaala iyo qayb saddexaad oo iyagu labada qolaba u sheegta inay ka tirsan yihiin hadday kuwan la joogaanna la maca hadday kuwan la joogaanna la maca aan lahayn jur'ada ama awoodda ah inay mowqif cad istaagaan oo waxa ay rumaysan yihiin ay ka badheedhaan ama gaalnimo ha noqoto ama islaamnimo ha noqotee qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa kooxdani bini aadamka kooxda ugu shar badan inay tahay gaalka munaafaqa ka xun waayo aakhira isaga ka boos hooseeya ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira naarta waxaa loo kala cadaab kululiyay sida loo kala hooseeyo ilaahayna wuxuu ku tilmaamayaa inay gelayaan fi darki alasfal halka ugu hoosaysa naarta inay munaafiqiintu ku jiraan idan munaafiqiintu waa duul gaalnimada ka hooseeya laakiin bulsho ahaan ka tirsan mujtamaca muslimka idan bulshada muslimka qayb ka tirsan oo gaalka ka liidataa jirta qur-aankana astaynaya oo sifaynaya waa dulkaasi munaafiqiinta la yidhaahdo nifaaqu أصل الكلمة علماء اللغة غار كم يدو حيث الماما وحكيمي من نفقاء اليربوع نفقاء اليربوع وحل قلت الماما بهاشان ولد الله يده هذا قد كي قضته ولده وحيوان ير وبناك اسكجنول قد بي قضى دم بي أفقيشا دنك كله دهار يرمى عيد يربي كجتكتا dabeetana wala hadaad erido oo godka xagga ka galo aad tiraahdo daba soco xagga kalun bay madaxa ku dhufanaysaa way ka boodaysaa xagga kale oo ka bixi karaysaa aslul kalima waxay ka timi baa leeyahay min nafaqaa'il yarbu' waa kuwan dee nafaqa lagu tilmaamo tunaliskan ama godadkan la maro kaanama uu yahay munaafiqu ka xaggan intuu ka galo xagga kale ka baxa kooxdaana kama tirsana qolana daahirku uga tirsan yahay qolana baatinku uga tirsan yahay waa waladaa godka inta xagga gashaxa marka la yiraahdo qabtana xagga kale ka boodaysa idan qaybta tani waa qayb abuurantay ama se samaysantay ahdigii madiina
bale waa dad nebi moxamed la noola calayhi salaatu wasalaam bale waa dad majliska nebi moxamed soo fadhiisanayay bale waa dad intay nebiga u yimaadaan lahaa waxaanu qiraynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay haddana warkaasi aanu xaqiiqo ahayn ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamaya wuxuu leeyahy idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llah wallahu yaclamu innaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junna fasaduu can sabiili illah ilaahay wuxuu sheegaya subxaana wa tacala oo inooga warramaya nabi maxamed baa alla leeyahay markay munaafiqiintu kuu yimaadaan waxay leeyihin nashhad waxaanu ka markhaati kacaynaa maxay ka markhaati kacayaan innaka larasuulullah inna iyo laam iyo adawaatu tawkiidka intay urursadeen ayay waxay leeyihin waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay nebi maxamed bay la khitaabayaan oo la hadlayaan iyagoo la joogana waxay sheegayaan inay rumaysan yihiin nebi muxamed inuu ilaahay rasuulkiisii yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala warkooda beeninaya laakiin intaan warkooda la beenin waxaa la tilmaamayaa hadalkay horta sheegeen inuu isagu dhabiyey laakiin iyaga odhaahdoodu inay beentay wallahu yaclamu innaka larasuulu baa ilahay yidhi masaladaas iyada muran kuma jiro oo ilaahay waa ogaya subxaana wa tacaala inaad ilaahay rasuulkiisii tahay laakiin maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu leeyahy wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun waxaa kaloo ilaahay ka markhaati kacaya munaafiqiintu inay beenaala yihiin baa la yidhi subxaana wa tacaala idan bulshada aan ka warramaynaa ma aha bulsho daba joogtay ee waa bulsho nebi moxamed la noolay waa bulsho majliska nebi moxamed fadhiday waa dad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku leh waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad tahay ilaahay rasuulkiisii sidaa awgeed waa qayb ka tirsan mujtamaca muslimiinta ah qaybta tani cahdigii maka may jirin waayo muslimiintii maka joogtay xaaladii ay ku noolaayeen may ahayn dad itaal leh oo ama wax laga rajeeyo ama laga cabsoodo ama dadka muslimiinta abaaba dhib ku jiray laakiin wakhtigii madiina gaar ahaan badar gadaasheed ayuu nifaaqu aad u soo caanbaxay markay guushii muslimiintu muuqatay iyo dadku inay xoog yihiin ayuu nifaaqu soo caanbaxay iyagoo isugu jira qaar hunguri wado qaar magac iyo maamuus doonaya qaar raba islaamka inay lugooyaan nooc walba isugu jira munaafiqiinta qur-aanku uu ka warramay caanka waxaa taqaan inuu ka mid ahaa nin la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ka mida labadii nin da ahaanba waxaa la yidhaahdaa ansaar dagaaladii dhex maray nin weynba kamuu tegin baa la yidhaahdaa wax odayabay culamaa'i taariikh qaar ka midii sheegaan laba nin baa ansaarba waayeelba ku hadhay labada nin waa xandala ghasiil ilmalaa'ika ninka la baxay abihi abi caamir alfaasiq abi caamir alraahib ninka la odhan jiray midna waa cabdillaahi ibnu ubay waayeel maka labadaasaa ku hadha la yidhi madiina waayeel labadaasaa ku hadhay ragga inta kale dhallinyaray ahaydee madiina jooga dagaaladii baa waayeelku ku madhay markii la heshiiyeyna waxaa la yidhi aan waayeelkeenna madax ka dhiganoo cabdilaaha la gartay in saltanad iyo maamuus iyo magac loo yeelo iyadoo cabdilaahi taajkiisii suldaannimo la tolayana nebi maxamed baa soo galay calayhi salaatu wasalaam madiina oo dadkii qiyaade iyo diin cusub bay raaceen cabdillaahi ibnu ubay nifaaqiisu nifaaq siyaasiyuu ka bilaabmay bay dhahaan wuxuu u arkay kursigii madaxnimada in nebi maxamed ka qaaday sida awgeed intii hore wuu isgiijinayey markii dambe uu arkay in islaamkii guulaystay xoogaystay badar dabadeedna isna daahirka qolada islaamka ka sheegatay ayuu ka mid ahaa waxa aan ka warramayaa marka oo aan jeclahay nifaaqa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayo qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramay ilaahay subxaana wa tacaala waa awoodayay nebi muxamed in dadka inta munaafiqiinta inta waxyi loogu sheego la yidhaahdo hebel waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiq hebelna waa munaafiq iska ilaali waxay culammadu yidhaahdaan wakhti dambe ayaa waxyigu nebiga ku soo degay midhadh ka mida munaafiqiinta loo sheegay isna uu xudayfa oo qura u sii sheegay xudayfa ibnulyamaan saxaabigii la odhan jiray
laakiin baa la yidhaahdaa intii ugu badnayd munaafiqnimada ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan buu ku asteeyey iyo sifaat culamaa'i tarbiya rag ka mida waxay tilmaamayaan mas'aladaasi waxaa ku jira bay leeyihiin in jiilka dambe muslimiintu waxay ku dhaqmaan ay helaan oo haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uun inta munaafiqiinta magacyadooda loo sheego innagu maanta munaafiqiinta saynu la dhaqmi lahay see lagu garan lahaa innaga ila waxyina inoo iman maayo magacyana ma haynee see lagu garanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu asteeyey si dadku u wada garto qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay munaafiqiin kaga warramaya suuratu lbaqara in badanoo ka mid a ilaahay kaga warramaya suuratu tawba suurat lmunaafiqiin axdaad tiro badan oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii dhacdaa ilaahay kaga warramaya ghaswatu uxud ghaswat alaxzaab ghaswatu bani nadiir bani lmustalaq xaadithatu lifk ghaswati tabuuk qur-aanka ka warramaya ghasawaadkaasoo dhammi munaafiqiin buu tilmaamaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramayaa munaafiqiintu khatartooda waa nimankii awooday nebi moxamed ciidan uu wato gebigiisuba 1,000 qofa inay 3 dalooloo dalool la kaci karaan yacni taaiirkay bulshada ku lahaayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ghaswatu uxud 1,000 nin buu la soo dagaal tegey iyadoo uu nebi yahay oo rasuul yahay oo qaa'id yahay oo sayidulbashar uu yahay oo rajul xakiima caqli badan fatana bulshadiisa yaqaana garaad badan isla markaa risaalad iyo waxyinimo wata ayay waxay awoodeen 300 oo ciidankiisa ka mid ah inay cidlo la kacaan nimaan nebi moxamed ahayn markaa maxay ku samayn karaan hadday awoodaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii inuu 300 kaxayn karo waxaad garan kartaa khatarta dadkani ay leeyihiin inta ay gaadhi karto amase inta ay leekaan karto inay dhan halaagi karto sida awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya qur-aan tiro badan maalan fi suurati albaqara markii mu'miniinta laga warramayay 4 aayadood baa ilaahay sifaadka mu'miniintaba ku tilmaamay alif laam miim marka laga tago 4 aayadood ee ku xiga ayaa ilaahay mu'miniin ku sifeeyey gaal markii laga warramayay 2 aayadood baa ilaahay ku sifeeyey 2 aayadood oo kaliya waayo labadan kooxoodba bay culammadu yidhaahdaan waa dad la garan karo astaantoodu ay caddahay waa dad aan midabaynin waa gaal gaalnimadiisa la garanayo muslimnimadiisa ama mu'minnimadiisa la garanayo ama munaafiqiintu waa dad midabeeya subaxba dhinac u eg galabba dhan jooga waa qof aanad astayntiisa iyo tilmaamtiisa si toosan mar qura wada garan karin sida daraaddeed baa 13 aayadood ilaahay uu ku asteeyey 20 aayadood ugu horeeya marka laga warramayo alif laam miim marka laga tago 19 kale 13 aayadood oo kamida baa lagu asteeyay ama lagu calaamadiyay munaafiqiin taasi waxa ay tilmaamaysaa bay culimadu yiraahdaan sida uu munaafiqa iyo astayntiisu khatar u tahay ee loo dareemi karo sida uu googooyn badan yahay marba meel uu taagan yahay markii kooxahoo dhan la asteeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkoo dhan u yeedhay oo la yidhi yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum wardadow dhammaantiin isku darsamo war ilaahay ka baqa la yidhi ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ucbudu rabbakum waxaan uga soconnaa maxaa intaasoo aayadood oo qur'aana loogu tilmaamay waxa loogu tilmaamay baan leenahay in innaga wax layna baro idan waxaynu u baahannahay markaynu munaafiqiin iyo khatartooda ka warramayno intaanan khatartooda sharxin iyo sida loola dhaqmayo inaan in yar eegno munaafiqa iyo qur-aanku siduu u asteeyey waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa am xasiba aladiina fii quluubihim marad an lan yukhrija allahu adqaanahum walow nashaau la araynaakahum falacraftahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni alqowl wallahu yaclamu acmaalakum ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u tilmaamayaa duulka gaaleed haddaanu rabno waaba ku tusi lahayn baa ilahay leeyay kuwa munaafiqiinta ah laakiin waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta wuxuu ku garanaya inay tahay warkooda iyo ficilkooda iyo aqwaashooda iyo qaabkay u dhaqmayaan marka waxaan rabaa sifaadkooda qaybo ka mid ah midhadh inaan tilmaamo
waxaan u tilmaamayaa midhadhkaa sifaadka ka mid ah nin waliba inuu naftiisa eego uu hadduu waxa kani wax kaga sugan yihiin uu iska zuuliyo uu ka fogaado ka dheeraado walaalkaaga kale aad uga digto ilaahi subxaana wa tacaala munaafiqiinta markuu sifeynaya sifaadkay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah waxay caan ku yihiin inay jecel yihiin in muslimku jabo islaamkana laga guulaysto waxay caan ku yihiin baa qur-aanku tilmaamaya inay farxaan markii ay arkaan goob muslim ku jabay guusha gaaleed iyo ay ku raynrayn bilaabaan markay arkaan haddaad sifadaa iska dareento aad aragto meel muslim ku jabay adigoo faraxsan waa sifa min sifaati almunaafiqiin ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy in tusibka xasanatun tasu'hum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون بإله إليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هدي وناجد هلبا إله إليه سبحانه وتعالى ومسلم كقول استدتك كنحا وإياك بإله إليه تسؤهم haddii xagga allaba masiiba idinka haleeshana waxay odhanayaan waa arkaynaa waxaasoo annagu waa ka tabaabushaysanna waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyahay iyagoo weliba faraxsan idan muslim jabkii gaal baa ku farxa muslim jabkii munaafiq baa ku farxa haddaad markaa aragto dad islaam u nisbo sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey rayraynayo farxaya oo u arka inaan wax weynaba dhicina qolaama mutatarrifiina macaynkan hadama saatan ahayd ay yihiin kuwa jabay waa calaama min calaamaati almunaafiqiin ilaahay baana ku asteeyey idan haddaad astaantaa isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso waxaa qur-aanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka warramayay alle subxaana wa tacaala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadowga muslimka walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah ilaahi subxaana wa tacaala isagoo nebi maxamed tilmaamaya wuxuu leeyahy alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli alkitaab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم إلهي وحط الماما سبحانه وتعالى ألم ترى ماذا كن بإلهي إليه موقتهي إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم بإلهي كوا منافقين تي وحي كليهين ولا لدود بإلهي يا أولا له منافق يا أولا الله قدقي رب العالمين باقولا ولا لغدغي مؤمنين توحى ليدي انما المؤمنون اخوه اما منافقين توحى ليدي يا الله ولا لا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب waxay ku oranayaan walaaladooda ahlu kitaabka aba ilaahay yiri idan waxay rumaysayin mabaadi'da iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabkiya inta gaale la socota وأستين إلهي سبحانه وتعالى وكو أستيي إلهي وحلي قول هذا وحي كولي إن هدا لين خرجتم لنا إذن كانوا معينا سوى البيض كانوا دين لصعنا وحي إلهي قرآن كو الماما يا منافقة علامات كاللغوية قانين كم تهي dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan weligu waa cidaad u nusrayso u gargaarto walaalatay jeceshay inuu guulaysto aad jeceshahay kuwa muuminiinta aanay necab yihiin ilaahay baa wuxuu qur-aan ku leeyahay bashiri lmunaafiqiin bianna lahum cadaaban aliima waxaad ugu bushaaraysaa baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab wax laxwiya oo waa kuwa kuwani الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلهي مؤمن كوحكو منافق سيوحكو أستي الذين يتخذون الكافرين أولياء وكوا قال دولك كدغنا يبا إلهي من دون المؤمنين ومحيو كدغنا أيبتغون عندهم العزة با إلهي
maguul iyo sharafti iyo magac iyo rayn bay ka raadinayaan baa la yidhi subxaana wa tacaala idan waa calaamad kale oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo qur-aanka markuu astaynayay nimankii munaafiqiinta ahaa calaamaadka alla ku tilmaamay qur-aanku uu sheegayo waxaa ka mid ah cayda dadka muslimiinta ah asmaa xunxun iyo wax la mida loo bixiyo waa ka ilaahay leh subxaana wa tacaala yaquuluuna lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal man iladal waa ahlulislaamkii ayay ku sifaynayaan idan intaasoo astoo aan israaciyey hal midaynu ku sheegi karnaa oo ah labada safka ay rabaan inuu guulaysto gooshiisa ay ku farxayaan ay u hiilinayaan ay walaalayiin ay la socdaan waa safka gaalada baa la ku tilmaamay maca daalika waxay la joogaan oo ay ka tirsan yihiin waa bulshada muslimkaa bulshada muslimkaana waa la degan yihiin safkanna waa u sahan iyo horseed iyo taageero iyo wax walbaba u yihiin astaan kaloo xoog laba qur-aanku uu ku sheegay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nimankan calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah haddii ilaahay sharcigiisa lasoo hadal qaado in ilaahay la raaco laga xukum yeesho isaga laga dambeeyo waxyu samaa la raaco mas'aladaasi waa ka dhabar jeedinayaan uma dhegtaagayaan dadkana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan waxay raalli ku yihiin mas'aladaa wixii cagsigeeda ah ayay ku faraxsan yihiin magacay doonaan markaa ha u bixiyaan oo ah maxaa u cagsiya cuquusha basharku waxay xeeraysay jidaysay ay isim ha wato ilaahay wuxuu sharciyeeye jideeyey ma rabaan bini aadamku caqligiisa wixii uu ka keenay uu jideeyey ama xeer qabiil ha lagu sheego ama xeer dowladeed lagu sheego ama xeer United Nations ha lagu sheego ama xeer ka hooseeya mid ka sarreeya mid ka dambeeya wuxuu doonayaa ha noqdee wixii bashar uu ururiyeyna xaqiisa u dheeraynayaan baa ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay calaamad munaafiqtay markaas ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلهي وحلي سبحانه وتعالى ميانا أركين كوى الشيغانية أرنكود الزعم بالغدقي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كوا شيغانيا إن الروميين وحي أديك لغو سو دجيي iyo rusushii horeba wixii lagu soo dajiyay oo maxay qabanayaan waxay rabaan baa ilaahay inay xukum ka dhigtaan taaquudka iyo warkii iyadoo ilaahay uu faray inay baabka ka gaaloobaan laakiin shaydaan baa lumitaan fog lumiyay baa ilaahay maxaa wastaana markaa wayda qiila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul haddii la yidhaahdaba ilaahay yidhi waar u kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey nebi moxamed wixii waxyiye loo keenay kaalayo raaca haddii la yidhaahdo ilahay wuxuu yidhi ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo mas'aladaa ka jeesanayoo diidan oo ka cararaya idan haddaad aragto bulsho ka didayso ka fiigaysa waar ilaahay aan raacno waa sifo ka mid ah sifaadka munaafiqa lagu yaqaan rasmiga waa sifo aan u baahanay markaasi inaan iska fogeyno oo ah haddii ilaahay iyo rasuulkiisa lagugu yeedho inaana diidin mas'alo 2 3 4 5 20 konton waxay doonaysaa ha noqoto ilaahay iyo rasuulkii haddii lagugu yeedho wixii ka yimi inaanad ku madaxadaygin oo ka jeesanin haddaad ka jeesato waxay noqonaysaa inaad yeelatay sifo ka mid ah sifaadka nifaaqa munaafiqiinta sifaadka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid ah inay yihiin qaybo ka midi duul tahana muuqaal ahaan dadka markay is hortaagaan jidh ahaan dhisan hadal ahaan hadal deeqsiinaya dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan waxay rabaan inuu islaax yahay laakiin hadday jeestaan markay tagaan
bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay fasaad bay ku gundhabaan waxbaba ma nooleeyaan idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo markayse iyaga gacantooda soo gasho dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahay waa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyahay warkiisu uu ku cajab gelinayo oo dadka caliimu lisaanka bale dad dood badan oo doodyahana aladdu lkhisaama dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waidaa tawalla min alwilaaya aw min altawalla iyo alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan ilaahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasr wallahu laa yuxibu alfasaad shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi ilaahayna fasaadka ma jecla waidaa qiila lahu ittaqi illaah markaa dambe uu wax wado haddii la yidhaha war ilaahay ka cabso xaggaad wax ku wadaa akhadathu alcizatu bilism faxasbuhu jahannama walaa bi'sa almihaad isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan wuxuu u arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun baa ilaahay leeyahay haddii la yidhaahdo war dhulka ha fasahaadinina waxay leeyihin annagu waxaanu wadnaaba waa islaax xoogaagan dadka lalaynaya waxa kan waxaa looga jeedaa in nidaamka lagu dejiyo arrimuhu inay dhagdhag noqdaan ayuunbaa loo wadaaye adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qabaa wanaaggan wadna way arkaan dadka bukaan arag bay ku leeyihin indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum almufsiduun innahum hum almufsiduun alaa war hooye adawaatu tanbiih baa ilaahay ku isticmaalay dabeetana ilahay wuxuu leeyahay innahum hum almufsiduun iyagoo keliyunbaa baa ilaahay leeyahay ahlu fasaadka kuwa wax fasaadiya waa iyaga laakiin waxba waanay garanayn waxba waanay dareemayn baa ilahay leeyahay dareenkaa lumay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min calaamaati nifaaq inay ka mid tahay dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyey inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufahaa maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilahay wuxuu ku leeyay waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas haddii la yidhaahdo war dadku sida ilaahay u rumeeyeen idinna ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaaluu an nu'minu kamaa aamana asufahaa bay leeyihin ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka waxmagaratadii siday yeelaan masaasaad nala rabtaa bay leeyihin ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum sufahaa walaakin laa yaclamuun iyagaa safiiha baa ilaahay yidhi maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahy subxana wa tacaala oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragta inay la mid yihiin waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna laakiin kooxahoodii iyo waxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaatiihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun markuu warka dadka la hadlayo shareeco iyo diin iyo arrimo iyo warkaasu ka warramay khayr buu ka warramay iimaan baanu qaadannu ka warramay laakiin kooxahoodii markuu u taga baa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaya ma waxaasi dhabnagama aha buu leeyahy
وحيلة سياسية كمدة بولية وحبضا كماها. هذه الصفات مركا انت المامنة يعني القرآن كصفات أترى بدن بكت المامية وحكم دينيين دد حمها انكو باقة وانسمها كباق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إلهي وحط المامين دد حمها دد كفرة فساد كأي الرذيلة إيا وحل إيا خلاق حمد إيا وحاسي ونظام الحرية ولا فافنية ووضعا معروف كسوى خطر ماشا وحباك وشرا وحباك سو سعدا لليه وحي معروف يدعكت على صاري ولا الريبية وحي سفسادي يقوى مباح ولا سيدينية. إلهي وحكت المامية سبحانه وتعالى إن الصفات كودا كم تهي ويقبضون markay xoolo joogto wadadhun guri badan baa ilaahay leeyahay waxa uu inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana wadad gacmaada go inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba intuu qaato inaan shilimo ka dhicin ay doonayaan. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. wadad markay wax bixin iyo sadaqa iyo wax bixin joogto raba in wax la siiyo idan raacistuku raaca halkaas wax ka maqlaya hadaad wax siiso waa macak waa raali inta wax qaadanayo laakiin hadii la yiraahdo adiga maanta waa laga yara maarmay qolo ka yara dhib badan baa jirta markaas uu dudaya baa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala markaas uu carada bilaabaya. idan waa dad hunguri badan oo hanti markay meesha taalana hunguri la taagan marka aan wax jirin ama aan isaga wax loo dhiibinna ceebayn badan baa ilaahay leeyahay. lamzi waa dad ceebayn badan oo dadka ku ceebaynaya wax bixin la'aan iyo kan waa dad hadday wax bixinta iyaga waxa la yidhi yaqbiduuna aydihim gacmahaba u xidhan basti lyadi ma yaqaanin gacantooda uma fidsana. idan waa min sifaati nifaaq. هذه الصفات مركا عن تلمامة يوحى عن ربا إن أنا يلان أدنى أنا ديالان ويوا علامات كم إذا علامات النفاق نفاق نو قيب سما مرنا وكي قلبي قدك يقال لمضاها مرنا والنفاق عملية نفاق عملي وكون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت المامة آية المنافق الثلاث منافق علامات كالوقر تواصدح أما أربعة من كن أفر منك كسو جنب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفرتاس يسوي ما دوا منافق برحترا أنبياء اسمرين نينك ميت كميدا لغا هلانا خصل من خصال النفاق با كجيره بو نبي قيب كميدا قيبه النفاق نفاق عملي علماء marka ku fasiraan. idan marka aan ka warwarsanahay nifaaq ay leeyahay saxaabadii nabi maxamed ba alayhi salatu wasalaam wa radiyallahu anhum ka warwarsan macnaheedu waxa weeyaan nifaaqa amaliga inaynu ka dheeraano كعقدي أنا كفجانه مركان كور رمي صفات المنافقين ومتشهدين عد على مدسان واستيسان وحنو تشهد قف كستو مؤمن أهل إيماني إنه يسكت ضيين وحكن كفيد مكتوبات كانوا إنه يسكت ضيين أنو يلان علامة دي إلى هاي كوا النار تهلك وهو سيجل يا إلى هايين إن هنا دي أنا لجاهلين إنه يسكت ضيين إنه كفجانه سيد ردد بإله سبحانه وتعالى وحنات المامية ودول دار بدن بالليل عهدي عندما بوحة معروفة ما دحدا والله دارية وحن والله ونظام قالتك وهي مسلمين تحب ما يداري جرين ما دحنا لما دارية عد كلنا لما دارية قفك مسلم كادي ما لو دي بوها هي لكن نظام قالت با يقانا قفك قعنت تاجي يلا دارنا هي دارية ولي باللوم با وقت عندما لا تربدي علامات النفاق الله وحكت الماما ويحلفون بالله إنهم لا منكم وما هم منكم ولي بالله waxay gunta kaga jarayaan inay idin kamidiyeen inay danta dadka wadaan inay maslaxada ilaahayna wuxuu leeyahay wama hum minkum idan kama tirsana waxaynu tilmaamaynaa alla subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamaya munaafiqnimada calaamaadkii lagu yaqaanay waxa kamid ah inay yihiin duul madaahirtu ay la weynti muuqaalkan sare وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم بإلهي كنت المامية موقال كود وكو عجب قلني وقف جعل ضدك إنه موقال في عنه ويماضه
laakiin quluubtooda iyo caqaa'idooda iyo waxay rumaysay inay aad u liitaan. munaafiqiintu waa dad markaa sifaadkaasi uu qur-aanku ku tilmaamay. ama khatartooda iyada haddaan 2-3 kelmadood ka idhaahdo aan badnayn, khatar waxaa ku filan inaynu taariikhda ku haynaa nebi maxamed siday u galeen calayhi salaatu wasalaam. inay isku dayeen ciidankii dhammaaye uu watay ulu ka mida inay la baxaan oo ay nebi maxamed kala hadhaan. waxaa kuugu filan siday isugu dayayeen inay saxaabada nebi maxamed madaxa isu gelayaan iyo dadka muslimiinta ah. oo maalan xadiidkii ka warramayay qisat alifk, xaaditadii ama dhacdadii ifkigu, nimankani siday markay ka soo hideen muslimiintii oo isku direen oo wax walba, yani ma ghaswatu bani mustaliq markii la soo noqday waxaa dhacay 2 nin oo dhallinyaro oo saxaaba ah baa fara ka cayaaray. mid baa mid dabada dhirbaaxa ama haraati kaga dhuftay, kii kala cadhooday. dabeetana waa kuwii qayshaday yaal alansaar iyo yaal almuhaajiriin ku qayshaday. waa kii mowqifkaa ka faa'iidaystay ibnu ubay, yaa lahaa samin kalbak yaakulak. ama ilaahay uu ku tilmaamay inuu lahaa haddii magaalada lagu noqdo waa dadku biyeeyo burba u kala baxaya, waa in la kala baxaa. dabeetana nebi moxamed uu leeya calayhi salaatu wasalaam isagoo dadkii dejinaya, dacuuha fa innaha muntina, war qabiyeeladan iyo waxaan isugu yeedhaysaan. bale makrigoodu wuxuu gaadhi karaa xad dad waaweyn oo saxaaba uu ka qarsoomi karo. oo maalan madiine iyadoo la joogo ayay nebi maxamed gurigiisii been ka sheegeen oo ay yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii waxaa ka haystay nin kaloo muslimiinta ka mida. warkaasaa la faafiyey. ilaahay subxaana wa tacaala waxaa la rabay atarbiya bilaxdaad. muslimiinta dhacdooyin dhabaa lagu rabaynayay. bil baan waxyi ka soo deginoo qadiyadda nebi maxamed looga warramayn calayhi salaatu wasalaam. ou nebi maxamed tashiga badinayay oo uu dadka wax weydiinayay, warbarsaydan la tahay see waxu jiraan. cali la tashaday, usaamo la tashaday, bariire wax weydiiyey, uu arrinka ka waraysanayo. xad bay nebiga ka gaadhay intuu masaajidka istaagay inuu yidhaahdo yaa macshara almuslimiin. membarka intuu nebigu fuulay oo ilaahay ammaanay ayuu saxaabadiisii la hadlaya, wuxuu leey war muslimiinay, man yacdirunii min rajulin qad balaganii canhu aadaahu fii ahli. war yaa iga cudurdaray, yaa iga qabanaya buu nebi maxamed leeyahay nin dhibtiisu ay gurigaygii gaadhay. nebi maxamed baa ka sheeganaya oo mimbarka fuushan oo la hadlaya saxaabadiisiiyo wuxuu leeyahay waar nin dhibtiisu gurigaygii gaadhay yaa iga qabanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay reerkayga inaanan wax khayra mooyaane wax kale ku ogayn. ninka ay wax ka sheegayaanna khayr mooyaane wax kalena kuma ogi. gurigaygana weligii ma gelin isagoo aniga ila socda mooyaane, ee yaa iga qabanaya. saxaabi baa istaagay, sacad ibnu mucaad la yidhahda, wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, hadduu reerkayga yahayna, reer buu madax u yahay markaa, hadduu reerkayga yahayna anigaa wax ka qabanaya, hadduu reerka kale yahayna nafar waa dilaynaaye. hadduu waxaad tidhaahdaa shaqaha laga qabta annaga ka qabanayne. saxaabi kalaabaa tii qabyaalad ahayd intay ku kartay ayuu istaagayo wuxuu idhi wallaahi waa been tahay, waxaad sidaa u leeday waxaad ogaatay inaanu reerkiinna ka mid ahay ninka laga cabanaya. mana dili kartid, waxna kama qaban kartid. dabeetana saxaabi labaad baa istaagay, usayd ibnu xudayr baa istaagoo wuxuu yidhi wallaahi waa beentaayo waa dilaynaa, shaqana waa ka qabanaynaa. wa innaka munaafiqun tujaadilu can ilmunaafiqiin, adna munaafiq kalaa tahay oo munaafiqiinta u doodaya. dabeetana waaba la isku oogsaday. bal qiyaas nebi maxamed oo mimbar fuushan oo nin ka cabanaya oo saxaabadii inay isku oogsatay waa shaqadii munaafiqu qabtay. dadaan nebi maxamed la joogin markaasay u galayaan waa inay casarka isweeraraan, maadaama aanay nebina haysanin cid xakiim oo dadkan kala qaban kartaana iskaba yar tahay. hadduu harag shabeelkiisaasi gashado in yaroo fudud buu dhagaa isugu wada gelin karaa. sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaadhay qadiyadii kale intuu joojiyaba inuu dadka aamusiiyo oo yidhaahdo war bal aamusa 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 aamusa, saxaabada kala dejiyo. arrinku ninkii laga cabanayaba inuu dhaafo ay noqoto in saxaabadii nebi maxamed la kala badbaadiyo oo lagu kala badbaadiyo munaafaqa kani shaarkan uu gashaday odaynimo iyo sidan uu dhaqmay iyo mushkiladatan. taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa
munaafaqu khatarta uu ku leeyay bulshada muslimka ah iyo waxa uu geysan karaa inta ay leeg tahay ayay tilmaamaysaa. waxaan se isweydiinaynaa leenahay sifaadkaasi munaafiqiinta ee qur-aanku wax badan ka sheegaya midhadh yarna aan ka soo qaatay haddaynu inagu nafaheenna kaba khallisno si ay dhacayso kollayba qaar wataa inay joogaan sidee loola dhaqmayaa? dadka badh bay u muuqataa ciddii laga cawdaba in hal bamoo yar madax lagaga dhufta aakhiraha qabtee, laakiin waxaynu u baahanay inaynu dib ugu noqonno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bulshada kuwaasi ku jiraan buu waday horta marka koowaad. bulshada qabaa'ilka lee reeraha lee noocaasiya, bulshadaasi munaafiqiinta wadatay caynkaasiya, bulsho arkaan ahluliimaanoo waaweynina ay ku jiraan iyo cumar iyo abubakar iyo rag la mid ay ku jiraan. siduu ula dhaqmay baa isweydiin leh nebigu calayhi salaatu wasalaam. haddaynu isla qisadan dib ugu noqonno ghaswatu bani lmustaliq aw ilmuraysiic, muraysiicna waa ceelkii laga cabbayey, mustaliqna waa qabiilka la magaciisii ama reerka qaswada loogu magacdaray ama ceelkoodii ha loogu magacdaree. dagaalkaasi meeshaas ka dhacay markii laga soo noqday ee labada saxaabi ee dhallinyarada ahi farakalooleen ee dabeetana isku xanaaqeen ee wararkii badnaa ninkan munaafiqi uu ku hadlay, cumar baa adkaysan waayo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dacnii yaa rasuula allahi adrib cunaqa hada almunaafiq, ilaahay rasuulkiisiiyow igu sii daa munaafaqa kanaan shaqo ka qabtee, madaxa kan anugu aan ka jaree igu sii daa. waxay isweydiinta le inaynu garanno nebigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam. nebigu qadiyadda tan siduu u xalaalay waa mushkilad taagan, laakiin ma odhanin nebigu ninkani munaafiq maaha, ma odhanin in dil ma mutaysto oo ma dilayno, laakiin ufuq intan ka dheer buu nebigu maxamed ka warramay calayhi salaatu wasalaam. aragti intan ka ballaadhan, qofku isagoo dembaaba isagoo dil xaq muta ayaa waxyaabo badan iyadoo la eegaya qaab kale loo manage garayn karaa. qiyaadadu ama dadka hoggaanka haya waa inay noqdaan dad caqli badan oo aan wadciga midhmidh u qiyaasaynin ama u eegaynine bulshada iyo waxa ka ratibmaya sida wax u dhici karaan arki kara. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dachu laa yataxadath annaas ana muxamadan yaqtul asxaaba, war iska daa buu ku yidhi nebigu, dhaaf ninka kan, ummadda kale isugu sheekayn maysa buu nebigu yidhi, nebi muxamed inta la socotuu laayaa la odhan maaye. nebi moxamed muxuu ilaalinayay? ninkani waa munaafiq, dhib buu muslimka ku hayaa, laakiin haddana wuxuu nebigu ilaalinaya calayhi salaatu wasalaam sumcadda ah dadka muslimiinta ama nebi moxamed inta la socota inuu yidhaahdo wuu xujoobo madaxa uu ka googooyo inay dadka kale gaadho, waayo dadka kale u ta'wiilin maayaan, u odhan maayaan siduu imaamu nawowi fi saxiixi muslim xadiidka markuu sharxay u tilmaamayo wuxuu leeyahy nebigu xaq buu lahaa inuu dile, laakiin dee gaaladu u ta'wiilin mayso odhan mayso ninkani dhib buu geystay kan buu geystay, waxay uma odhanayaan kuwii la socdayba madhiye maxaa laga doonayaa. maxaa meesha ka muuqda marka? waxaa ka muuqda inaynu baranno ninkani dil wuu xaq mutay, wuu dhib badnaa, mushkiladiisu waa taa gaadhsiisnayd inuu haddana markii madiine la tagay qisadii hore aan ka warramayuu geystay. labada qiso waxa horreeyey tanuu nebigu sii daynayo, isagoo shalayto waxaa soo sameeyey ayuu haddana markii madiine la tegey xaadisatul ifki iyo wixii uu abuuray ee keentay in saxaabadii dhagaas la gasho. idan dilkiisu wuxuu keensan lahaabaa muuqanaysa inta shush badan uu soo baxo oo dad badan ay garan waayaan sababta wax loo dilay oo warar badan la sheego oo qabaa'il badan ay madaxa isla geli karaan. idan nebigu calayhi salaatu wasalaam meel durugsan buu wax ka arkay. qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa maalan 3 aayadood oo qur-aanka ka mid ah waxay sheegayaan munaafiqiinta iyo sida loola dhaqmayo. kow ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiin واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إلهي وحلي النبي الله جاهد الكفار والمنافقين، قالوا يا منافقين بلا جهات بلا يري،
laakiin waynaynu isweydiinaa siiradii camaliga ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siduu qoloba ula jihaatamay lama hayo wax munaafiqnimo loo dilay taariikhda nebiga calayhi salaatu wasalaam intaynu akhrinay kuma hayno wax inta la soo qabtay nifaaq loo dilay bale waxaa la yidhaha cabdillaahi ibnu ubay xaadiatul ifki markuu dhigay saxaabadii iyagu saxaabo ahaa iyo iimaanku dhabta ka ahaa laakiinuu ninkani hadateeliye gafka galay waa la jeedalay oo iyaga xadulqadfi baa lagu qaaday laakiin xataa culamada taarikh ma sugayaan in cabdillaahi ibnu ubay xataa jeedalkaana laguma dhufanin mistax iyo yani raggii la midka ahaa waa la jeedalay laakiin cabdillaahi ibnu umaya xataa jeedalkaasi kuma dhicin waxaa la tilmaamaya markaas siduu ula dhaqmay wuxuu ula dhaqmay baynu leenahay sidaasi uu leeyahay dachu laa yataxadath annaas anna muxamadan yaqtul asxaaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay markii laga warramay munaafiqiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay hum alcaduwu faxdarhum marka koowaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay hum alcaduw khabar iyo mubtadii baa loo kala horraysiiyey culamaa ilbalaaqa waxay sheegi jireen wixii xagga dambe mari jiray haddii xagga hore la keeno qisadka xagga hore loo mariyo waxaa ka mid a in wax lagu qasrinayo waxoo lagu koobayo ina iyagii kaannamaa la leeyahay iyagoo qurunbaa ah colba waa iyagabaa ilaahayna yidhi kama murmayno markaa munaafiqiinu cadowye ilaahay baa wuxuu leeyahay hum alcaduw colba waa iyagabaa alla leeyahy subxaana wa tacaala gaalba colka ka weyni ee ka soka maray ee ka khatarsan ee naarta halka hoosaysa gelaysa waa iyagabaa ilaahay yidhi garannay maxaynu ku samaynaa markaa ilaahay wuxuu yidhi faxdarhum ka digtoonaada waa inaad nolosha maanaj garayn kartaa waa inaad caqliyad isticmaali kartaa inaad isna hayn karto dadka muslimiinta aanu kaa fitnayn karin dhibtu gaalada kaaga geysanaya warku kaa geynaya waxana aad maanaj garayn karto waa inaad contain garayn kartaa alixtiwaa waxay culammadu yidhahdaan waa in lagula dhaqmi karaa siyaasat lixtiwaa munaafiqiintu jihaadkii nebi maxamed raaciyeen iyadoo loogayay inay munaafiqiin yihiin waa kuwii qasbatu tabuuk intay nebiga raacaan akhrinayay waxaan la akhrinin ilaahay iyo rasuulkiisa iyagoo ku jeesjeesaya ku dheeldheelaya bay socdeen waayo sifaadka nifaaqa waxaa ka mid ah waxaan kaftangelin bay kaftangeliyaan kaftanka kuma jiraan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka quran iyo diinta wax lagu kaftamaba maaha baabka kaftanka la yidhaahda ma galaan laakiin munaafiqu wuxuu ka dhigaa wax layskaga kafkaftamo lagu cayaaro ilaahay baa wuxuu leeyahy isagoo iyaga ka warramaya walain sa'altahum layaquulan inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulih kuntum tastahzi'uun waxay odhanayaan haddii la weydiiyo waa jidkaan isku dhaafinayno waa dheeldheel iyo kaftan iyo bay naga ahayd war ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesayseen baa ilaahay leeyay laa tactadiru waxba ha cudurdaaranina baa la yidhi qad kafartum waa gaalowdeen haddana lama dilin waxna looma geysanin ciidankii muslimiintaanay la socdeen may ahayn dad kaa tegaya maaha dad baaba la firdhiyaayo kaa hadha oo aad tidhaahdaa warina kala kaxeeya ma hadhayaano nebi maxamed bay xataa dagaalku ku socday dhex socdaan dan kalena male inay wax fasahaadiyaan bay u socdaan haddana iyagoo caynkaa u socdu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wadi karayo hayn karayay idan bulshada qiyaadaadka hogaamiye muslimkii waxaa loo baahan yahay dee masaajidka safulawalkoo qura lama wado munaafiqiintaaba safulawalka gasha markay doonto sida daraaddeed qofku waa inuu noqon karaa ama qiyaadada islaamiga waa inay noqon kartaa dad hayn kara bulshada dhammaantood saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala hum alcaduwu baa ilaahay yidhi col waa iyaga laakiin see loola dhaqmayaa faxdarhum qaatalahum allahu annaa yufakuun baa ilahay yidhi ka digtoonowun iska ilaaliya baa la leeyay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala aayadda saddexaade ka warramaysa qaabka loola dhaqmayo وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا
ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waa duul haddii loogu yeedho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa warkaalayo raaca haddii la yidhaahdo waxaad arkaysaa baa ilaahay leeya iyagoo ka madaxdaygayo ka cararayo ka sii jeesanaya. kuwaa diinta ka cararee ka sii jeesanaya lama odhan madaxa ka gur ee ilaahay wuxuu leeyahay fakayfa idaa asaabathum musiibatun bima qadamat aydiihim uma jaa'uka hadday balaaya haleesho balka warran markay balaaya ku dhacdo ee haddana intay kuu yimaadaan odhanayaan wixii aanu wadnoo dhan anagu hagaajiyuunbay naga ahayd arrinkuunbaa meesha noola ekoonaadaye waxay naga ahayduun ixsaanan wa tawfiiqa. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim waa kuwa ilaahay og yahay waxa qalbiga kaga jira nooca ay yihiin ilaahay waa ogyay baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin maxay ku sameeyeen faacrid canhum baa ilahay yidhi iskaga jeeso wacidhum waani waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa nafahooda waxaad ka tidhaahdaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacala waxaad u sheegtaa war meel fog gaadhka war baliiqoo ay wax ku qaadan karaan u tilmaam. waxaan leenahay munaafiqiinta qaar ka mida baa ilaahay intuu nebi maxamed u waxyooday loo sheegay inuu hebel munaafiqiye oo hebel munaafiqiye oo hebel munaafiqiye oo hebel munaafiqiye oo intuu saxaabada ka mida u yeedhay isna uu u sheegay xudayfata bnulyamaan saaxibu siri rasuulillaah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiqnimo lagu hubaabuu magacyadooda u sheegay hebel inuu munaafiqiyo hebel inuu munaafiqiyo hebel inuu munaafiqiye lamana laynin wax kalena looma geysan bulshaday ka mid ahaayeen. waxa meesha taallaa markaa waxay tahay waxa loo baahan yahay munaafiqu waa balaayo kula nool waa gaal kula jooga waa kaa dhibtiisu ay gaadhsiisantahay inuu sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada intuu iska hor keeno iyo usayd ibnu xudayr warkuu ka gaadho innaka munaafiqun tujaadilu cani lmunaafiqiin inay iyagii isku yidhahdaan war munaafiq baatay munaafiqiinta u doodaya waa kaa gaadhay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu gurigiisii intuu tashuush ka furo bil dhan warkaasi uu faafo laakiin waxaa layna baray qur-aan badan baa ilaahay ka soo dejiyey xaadisada waxaa layna baray wararka inaynan faafin shaayacaadka inaynan dhegaysanin qofka muslimiintii waxaasi inaanu ka shaqaynin warku cidda ku shaqale in la geeyo xataa hadday war noqoto iyo wax ka qabadkeed inaan suuqa lagaga warramin ciddii wax ka qaban karaysay ee ku shaqo lahayd in loo geeyo. waxaa layna barayaa jamaacada muslimiinta iyo dadka muslimiinta inaanu munaafiqiintu kala kaxaynin sida daraaddeed ayaa xadiidka shaykhaynku warinayaan bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo axmed iyo kayrkoodba soo saareen zayd ibnu thaabit baa wuxuu leeyahy markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu uxud qabtay ee uu ka soo noqday ee ay munaafiqiintii koox dhan oo saxaabadii dadkii nebiga la dagaalgelaya ay kaxaysteen ee la soo noqday jabkii haddana muslimiinta ku dhacay goobtu waa goob caynkeeya waagtay qiyaas ciidankii saddex qaybood oo qayb bay la tageen ha la tagaane haddaad soo guulaysato waxaad odhan lahayd waxba maaha waxay geysteen guul milatariyo cadina may dhicin oo muslimiintii 70 baa laga dilay oo nebiga adeerkii baa la dilay asadkii saxaabadaa la dilay xamza ibnu cabdilmutalib oo bal waa la googooyey oo tamthiil baa lagu sameeyey oo nebi maxamed baa god ku dhacay calayhi salaatu wasalaam oo nabarra ku dhaceen oo xad baa la gaadhsiiyey oo nebigu salaaddii sare joogga ku tukan kari waayo xad bay gaadhay in la yidhi nebigiiba wuu dhintay oo saxaabada iska fadhfadhiisato xad bay gaadhay raggii uxud ka dagaalamayay badh markii la jabay orodkii ay madiine ku galeen la jabay oo orodkii dadkii meesha ka cararay qaar ka midii ay madiine galeen oo qaar ay iska fadhfadhiisteen ciidan sidaa u jabay oo dhibta intaa laygi soo gaadhay nimankii 300 ninka kaxaystay markii madiine lagu soo noqday bay saxaabadii muranto waxay dhaheen nimanka waa laynaynaa nimanka waa in shaqo laga qabtaa waa in la laayaa wuxuu leeyahay zayd ibnu thaabit waxaa soo degay aayaadkan qur-aan ee ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramayo famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlil illahu falan tajida lahu sabiila war maxaa idinku dhacay baa ilaahay leeya munaafiqiinta laba kooxood ugu noqo ha ka murmina nimanka munaafiq waa munaafiq laakiin lama odhanin nimanka laaya ilaahay baa ka warramaya saxaabadii ku murantay war waxaasoo jaba nimankii inoo geystay maxaynu ku samaynaa
ragga badha ay leeyihiin markaa fi'a ay leedahay naqtuluhum firqana ay leedahay laa ilaahayna qur-aanku ka soo dejiyey sidaa tan buu uga warramay waxaan uga jeedaa munaafiqu waa duul khatar ah waa duulkaasi naarta ugu hooseeya waa duul bulshada muslimkaa la nool laakiin waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta ahayna kow sifaadka nifaaqa inaynu fahamno si aynu inagu nafteenna uga tahiri karno laba inaynu sifaadka nifaaqa fahamno ciday ku ururto si aynu u garan karno calaamaadkii nifaaqu inay qofka kan ku urureen waayo qofna qalbigiisa waxa ku jira ilaahay unbaa oga la garan maayo saddex waxaynu u baahanay inaynu baranno sida aynu ula dhaqmayno aynu u manage garaynayno dadka ummadda ama hoggaanu haya ama a'imma u ah ama horseed u ah ama dhaqaya inaanay noqonin caqliyo fudud oo ah inuun wixii gaaloobaba laga takhalluso ama wixii dhib geystaba dhegta dhiigga loo daro inaanu noqonin qadaayaadka islaamiga ee waaweynay inay u baahan yihiin in si xeel dheer oo fog ay u arkaan dadkay gacantooda wax ku jiraan oo ay gartaan markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibta intaa leeg iyagoo u geystay oo dagaaladaa dhan sababay inay jabaan muslimiin badani ama dhib badan ay ku dhacdo oo guryihii nebiga waxaa ka geystay oo saxaabadii sidaa isugu diray oo duulkaasiyo haddana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo cafwi iyo tasaamux iyo dulqaad iyo dulqaad qabinimo ku jirta maaha kaan ka warramaya yacni maaha dulqaad qabiya oo aan ogeyn waxay geysanayaan ee waa dulqaad garanaya faxdarhumta waa dulqaad garanaya inaanad ummadda munaafiq madaxa ka saarin waayo ilaahay baa kuu sheegay yuhliku alxarta wannasl waa dulqaad garanaya haddana inaan la dilina bulshada lagu dhex wadi karo idan waa inuu garan karaa dadka hoggaanka u haya ama muslimka ama hoggaaminaya inay bulshada islaamiga ama u nisbo sheegtay magacaasi huwaday inay intay dhiiggooda iska ilaalin karaan iska ilaaliyaan inay wadi karaan oo dadka kan iyagoo munaafiqiina iyagoo juhala ah iyagoo ducafa ah inay wadi karaan dariskaygu markaa waxaan jeclay inaan iska soo koobo aanan waxba badinin sifaad badan baa qur-aanka warramay qur-aan aad u tiro badanna oo de suwar dhan oo qur-aana markaad akhrido baqara markaad akhrido aali cimraan iyo ghaswatu uxud waxa laga sheegaya markaad akhrido tabuuk iyo wixii ka dhacay iyo suuratu tawba alfaadixa iyo markaad akhrido suuratu lmunaafiqiin iyo waxa alla kaga warramaya markaad akhrido suuratu laxzaab iyo ghaswatu axzaab iyo wixii ka dhacay reer banulmustalaq iyo wixii ka dhacay iyo qisadooda markaad akhrido ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu kaga warramayo reer banu qurayda iyo suurat alxashr iyo waxa laga warramaya iyo reer banu nadiir iyo suurat alxashr alam tara ila aladiina naafaquu iyo aayaadka la mida yacni qur-aan aad u tiro badan baa ilaahay kaga warramaya waxaasoo qur-aana waxa loogu warramayaa in innaga wax layna baro oo layna baro calaamaadka munaafiqnimada inaynu baranno iska ilaalinno oo nafina aaminka ma aha xandala markuu yidhi abibakar uu ka soo horbaxay muxuu yidhi naafaqa xandalat alaswad ibn alaswad markuu u yimi abibakar wuxuu yidhi naafaqa xandala abibakar markuu weydiiyey uu yidhi maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi dee nebiga markaanu la joognana caynkaasaanu markaanu carruurta iyo reeraha iyo xoolaha iyo wax kan u nimaadnana wixii badnaa ayaanu arkaynay jannada iyo naarta inaanu arkaynaa baad moodaysay buu leeyay markaanu nebiga la fadhinay hadhowna uun xoolihii iyo reerka iyo dumarka iyo waxbaanu ku mashquullaa abibakar arrimahaasi cid walba waa haystaanayna wadi buu yidhi nebiga inoo geey yacni abibakar baa is ilaalinayoo raba inuu isdhowro bale ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya dadkuba inay laba yihiin min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila liyajziya allahu asaadiqiina bisidqihim ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما dadka ba ilaahay wuxuu qaybinaya saadiqana waxa lagu sheegay mid jidkii ku dhintay iyo mid sugaya inuu ku dhinto kooxda kalena waxa lagu sheegay inay yihiin munaafiqiin idan nifaaq nin weyn iyo nin yarba inaynu ku talagalno sifaadkiisa inaynu iska daahir yeeli karno hadday yihiin sifaadka qalbiga
iyo haddayin sifaadka camaliga ee axaadiis tiro badan oo nebi maxamed ka soo aroortay ay sheegayso calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dadaallo waxaynu iskaga daahir yeeli lahayn oo maalan waxaa ka mid ah tusaale qura haddaan idin siiyo xadiidka sheekh alalbani silsilada uu ku soo aroorinaya imaam tirmidina uu soo saaray ee uu xasan ku tilmaamayo sheekhu wuxuu leeyahy man salla lillahi anas ibnu malik baa wuxuu leeyahy man salla lillahi 40 yawman fi jamaaca yudrika atakbiirata aluula ninka 40 maalmood jamaaco ku tukada laakiin aan ragcadaha dambe soo gaadhina takbiiratul ihraamka imaamka la xidha inagoo meelahan joognunba la qiimaa waxaan waa ka gaadhaynaa jamace waxa roon inaad ka gaadho takbiirta hore imaamka allahu akbarta inaad la xidhato oo la xidha buu nebi maxamed leeyahay imaamka takbiirada hore la xidha kutiba lahu baraa'ataan buu nebigu yidhi laba shahaado baa la siiyaa laba certificate labada shahaado waa maxay waa baraa'atun min annaar iyo baraa'atun min annifaaq baraa'atun min annaar munaafiq waxa la yidhi fi darki lasfal buu gelaya laakiin waxa la leeyahay kan waxa la siinaya baraa'a uu kaga dheeraado nifaaqa naarta uu kaga dheeraado iyo certificate kaloo caddaynaya inaanu munaafiq ahayn waayo munaafiqiinta waa tii lagu tilmaamay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiinta waxaa lagu tilmaamay salaada iyo jamca xataa hadday yimaadaan inay noociyaadka ay yihiin waxaa lagu tilmaamay hadday laf hilibla ku ogaan lahaayeen masaajidka maxay inaan ciidamo ka maqnaateen haddii la odhan lahaa masaajidka sheekh maxamed baa markuu dadka tukiyo waxoogaa u qaybinaya saflawalkaa dadku wada joogi lahaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya inay salaada jamacata subax iyo tacisho iyo kuwa casarka iyo salaadahaasi inay kuba adag yihiin laakiin waxaa laynoo tilmaamay ninka 40 maalmood aan jamacaba habsaaminee maalin kasta takbiirada hore jooga inuu laba certificate helayo waxaan uga jeedaa markaa dariskani maaha daris aan ku koobi karo sifaadka munaafiqiinta ee qur-aanka iyo sunnadu ay ka warrantay laakiin waa hogatus inaan idiin tilmaamo qur-aanku inuu halkaa ka taagan yahay iyo xadiidka nebigu sifaadka munaafiqa aynu u baahanayn inaynu iska ilaalino kaasi waa kow ka labaad ee aan rabo inaan tilmaamana wuxuu yahay inaynu garanno khatarta uu leeyahay munaafiqu gaalka uu ka khatar badan yahay ka saddexaad aan rabo inaan tilmaamana inuu yahay inaynu garanno cawaatifta iyo uun cadho aynu islaamu dad ka soo horjeeda u cadhaysanay inaanayna qaadine inaynu garan karno ummad haddiiba aad hormood ka noqoto sidaad u haanan karayso ama si aad u maamuli karayso iyo munaafiq iyo hayru munaafiqaba inaad wadi karto oo bulshada muslimiinta aad ka dhex ilaalin karto dacaayaadkan iyo dhibtan iyo waxa kan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo nifaaqana inaga dheereeyo sharkoodana inaga ilaaliyo iyagiyo gaalba ilaahay sharkooda inuu inaga dhowro inana kuwa saadiqiinta ku tilmaamay safka ka soo horjeeda in alla subxaanahu wa tacaala inoogu daro wallahu aclam billahi tawfiiq assalaamu calaykum